salmadhiga adduunyoy maxay subaxba heer joogtay weligeed qof bay saacidaa ama salaanta sallaan dheer markii uu koru samada beeqaaqo simbireerixada maalin bay sibir ku tuurtaa madaxdii sarsare ee carbeed suunkiba u go'ay saxar baa ku yuurara miriiq siibayaa helay saldanooyinkooday wax badan sidii ku maaleen dadkoodoo saboolay wax badan nolol siraateen saynal caabidiin baa dalkiiyo siray dadkiisii soo jaddii uu qabay baa dhulkii soofkii ka idlaysay dulmigii markuu saa'ito loo sabrina waayey isku soo bixii bay taxriir sabadka buuxsheen milyan iyo 800 ayay saray u dhaafeen waa kaasalaankii la jabay uu sabana saarnaa waagis bay ahayd ninkaas saynal caabidiin salaanku la jabay buu ahaa gabaygaasi waa taasalkii laga rujay ee saray u haysaan sidiina ku wada qaahiray sahan dambuu tagi liibiya 9 baa u goow satiriya sanca iyo walaalaha cumaan waa la sugaya urdun waa suloontahay iyo nasiiriya xigi gabaygaasi carab isbirid baa la yiraahdaa abwaan baa ii dhiibay abwaan luqmaan baa ii dhiibay 12kii barigaas uu sameeyay Tunisia ay burburtay carabto dhanna way shuuqaysay waagaas nabad buu dhulku ahaa inaga baa cawlayno gaajoonayno baahnayno koomba sidane gabay kalena wuu jiro Cabdiwaaxid Gamadi tiriyay oo oran jiray boqorradii sanka taagay dibida saydayay sararaha ragii yeeshayad suma la moodaysi islaamka bar ragii saninayay ayda saaciday gaaladu ragaysan yatee daba saqlaynay niyoon ilaa wada xafidsanaaba gabaygaas giddigood baa ku jirtay surku kaga hayaa seefta malagiyo waa ka dadkii lagu saliday si alla weeyaan ilaahay waa kaas umadiisii isku saliday waxaan uga goleeyahay Soomaali waxa arkay Djibouti maxaa loo duqeyn waay Djibouti maxaa Djibouti loo duqeynaya Djibouti dad Soomaaliyeed baa joogay see loo duqeynay damiir xumidine waniyo Soomaalidu xuma damiir Djibouti hadii la duqeeyo soo dadka ku dhimanaya inaga ma ah waniyo dadku xuma ilaahay Djibouti ka badbaadiyo Allah ka badbaadiyo isaga weyno waaxide ilaahay ka indhasaabo ilaahu Sacuudiga ha geyn dhiban saluugayno Sacuudiga xajkana Allah inooga badbaadiyo ilaahay Sacuudiga ha geyn dhiban saluugayno safa iyo ilaahu marwada seefa lagu qaadan saldhigii islaamka iyo xajkii xuma ka seeraari asxaabada dadkoodii rabbow sumuc ka qiiqaabin inkastuu saluug jiro haddana waa u samreynaa ilaahay Sacuudigana dhibaatada dhacaysa ha inooga badbaadiyo isaga weyno waaxide Soomaali maryoole bay noqotay wax aanay ahayn isku qaba ayay noqotay meel